saynisyahanada qaar ayaa aaminsan in dadku tan iyo bilowgii abuurkooda ay soo kala dhexlayeen jacaylka urta roobka ama leedha roobka horti iyo dhexdiisaba soo dhaca ee saxansaxada loo yaqaan. sida la ogyahay dadkii hore noloshoodu si ka badan sida imika jirta ayaa aad ugu tiirsaneed roobka oo saameyn weyn ku lahaa dhirta ay cunaan iyo xayawaanada kala duwan ee ugaadhsanayaanba. ku tiirsanaanta ay noloshoodu ku tiirsaneyd roobku waxay dadkaasi ku abuurtay jacayl gaar ah oo ay u qabaan neecawda urta udgoon leh ee la dareemo xilliga roobka ama hortiiba. jacaylka ay u qabaan ayaa maskaxdooda ku abuuray in ay farxad iyo reynreyn ay dareento marka ay urtaasi soo gaadho. dareenkaasi ayaa noqday qayb ka mid ah dareenada uu jilba jiilu sii gudbiyey. urta roobka mid ka mid ahi waa tala dareema marka uu socdo di'itaanka roob, gaar ahaan marka muddo dheer oo abaar ah lagu soo guda jiray. urtani waxay ka dhalataa isla falgalka kiimikaad oo dhowr ah oo u qaybsama laba qaybood. Number 1, dhirta qaar ayaa muddada abaarta waxay soo deysaa saliido kala duwan. kadib marka uu roobku bilowdo ayaa urta saliidahaasi ay hawada soo raacda. Number 2, dhulka marka ay dhibicda roobku ku da'do waxa uu soo daayaa maadooyin kiimikaad oo ka dhasha bakteeriyada ku nool ciidda dhexdeeda oo loo yaqaan actinobacteria. isku dhisyadaas kiimikaad ayaa soo saara ur isku dhafan oo udgoon samaysa. waxaa jirta ur kale oo iyadana xilliga roobka la dareemo waxay la xidhiidhaa soo de'ista roobka waxaana loo yaqaan ozone. marka uu onkadku dhaco ayaa hilaaca ay u suurta gashaa inuu kala sooco molekuyulada oksijiinta iyo nitrogenka gibilka ama atmosfeerka ku jira. kadibna mar labaad ayaa ay dib isugu soo laabtaan oo ay sameeyaan isku dhis loo yaqaan nitric oxide oo loo soo gaabiyo NO. isku dhiskan ayaa isaguna dhinaciisa kala falgala qaar ka mid ah maadooyinka kiimikaad ee kale ee ku jira gibilka, waxaana ka dhex dhashay ozonka oo leh ur dheer oo aad ugu eeg urta chlorine.